يا رسول الله خذ بيدي يا حبيب الله خذ بيدي يوم الفرق روحي والجسد كلنا بالنور والمدد يا رسول الله خذ بيدي يا حبيب الله خذ بيدي يوم الفرق روحي والجسد كلنا بالنور والمدد قدي ويا harka isguuraya nin bagoorugay go'sanay geedi weeya adduun harka isguuraya nin bagoorugay go'sanay maalintaan go'een ka soo galbadooy gurbo naboonage anqabo ya rasuulallah khud biyadi ya habiiballah khud biyadi yawm al-farqi ruuhi wal jasadi kullana بالنور والمدد haye dhageyste ma macaansatay oo ma ku qaadatay afarta daasadood ee la isku geeyay ee miisiga laga dhigay iyo cod macaanida odayga iyo geerida uu ka sheekaynayo ma ku jiidatay kada iska ilaali war ka joog waxa weeyaan waxani waa shirki sun iyo bakhti baa ku jira lagugu qurxiyo cod macaan ogsoonow waxa weeyaan shaydaanku inuu sidaas oo kale oo waxa weeyaan dadka wax ugu qurxiyo arrimaha noocan oo kala ah waxaan leeyahay odaygani waxa uu waxyooday shaydaan Allah jalla wa ala kitaabkiisa waxa uu ku leeyahay وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون الله سبحانه وتعالى وحوليه سدا سوكله وحويان وحان كيلني انبيada mid cadow u ah oo waliba qayb shayaatiinta ay yihiin qaybna ay yihiin insiga iyo jinka kuwaasoo waliba isku waxyoonaya qaarba qaarka kale hadalkaasoo waliba macaan oo waxa weeyaan ay ku jirto hadal qurxin iyo wanaag si loogu dagmo aayadda wuxuu ku gabagabeeyay Allah subhanahu wa ta'ala fadharhum wama yaftarun haddaad quraanka aktharkiisa ku aragto ereyga ah yaftarun shirki baa laga wadaa oo ilaahay subhanahu wa ta'ala nin kasta oo ku shirkiya uu ku been abuurtay nacam waa sida weeyaan idan waxa weeyaan cod macaanida iyo waxa weeyaan qurqurxinta la qurqurxinayo shirkiga ogsoonow shaydaan baa iskale midaasi waa minta ha macneeyo marka ereyada meesha odaygu uu ku hadlay qaybta carabiga ah qaybta Soomaaligana waxaan rabaa ina aan si yaro fiican igu baraarujiyo cidda huruda in si fiican u baraarugsanayn wuxuu ku bilaabay odaygu ya rasuulallahi khudh biyadi ya habiiballahi khudh biyadi yawma farqi ar-ruuhi wal jasadi jud lana bin nuuri wal madadi macnaheedu maxay tahay intan carabiga ah haddii aan idin macnayo waxa weeyaan rasuulkii ilaahayow khudh biyadi gacanta iqabo yaa xabiiballahi xabiibkii ilaahayow khudh biyadi gacanta iqabo goorma waxa gacanta la qabanayo bal u fiirsada yawma farqi ar-ruuhi wal jasadi maalinka la kala saari doono ruuxdayda iyo jasadkayga waa goorma ruuxda iyo jasadku goormay kala tagaan waa marka uu qofku geeriyoonayo waa qofku marka ay naftu ka baxayso weeyaan wuxuu leeyahay jud lana waxaad inoogu gargaartaa meesha eriga waxa ku qoran jud lana baa ku qornaa aad soo aragteen laakiin waa qalad waa jud lana noogu gargaar bin nuuri wal madadi waxaad inoogu gargaartaan waxa noogu gargaar baan u jeedaa rasuul ilaahayow nuur haye iyo wal madadi waxa weeyaan gargaar iyo aakhira inaad wax inoo qabato madadka laftarkiisa ayaa ah talabul ghawthi wal i'aana in aakhira wax lagu qabto oo lagu gargaaro okay alaysa hada shirkun billahi alazim waxan miyayna ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ghayrkii oo la baryaya miyayna ahayn war dadku cuquushoodu halkay joogan haddaanad carabiga garanayn waa inaad iska hubsataa wax kasta okay taa waxaaba ka daran waxaaban dhihi karnaaba dadku carabigan ayayba akhrin garanayn
ama ay fahmi karayn baaban dhihi karnaaba. Soomaaliga uu ima muxuu yiri geedi weeyaan adduun harka isgurayo ninba gooru ogeyn ka goosanaye. Nacam waa sax, intan ereygani waa hadal waxa weeyaan wanaagsan oo qiimo badan, laakiin maxaa ka dambeeya? Sunbaa ka dambeeya. Soomaaliga waad garanaysaa, intan maynaan ku macnayaad iga sugaysaa. geedi weeya adduun ka goosan maxaan ku yiraahdaa harka isguraye. Yani adduunkan waxa weeyaan waa laga wada tagayaa. geediga waxa la yiraahdaa qofku marka uu kolba meel u socdo, halkanaad ka guuraysaa, meel kale aad tagaysaa. Nacam waa sida adduunka waad ka tagi, aakhiraad tagi doontaa. Okay, nimba goor uu ogeyn ka goosanaye. Yani waxa weeyaan adiguba maalinaad ogeyn ayaad ka tagaysaa adduunka, ood u gudbaysaa halkii aakhiraad u gudbi ilaahay subxaanahu wa ta'ala xaqiisa ayaad u faaruqi doontaa. laakiin maxaa ilaahay agtiisa ku yaalo? ma inaad intood ereyadan akhriso iyo bakhtigan hadhow toolana waxa ilaahay aad la hortagto? waad arki doontaa la hortag waxa ku hela, waad arki doontaa intood waxyaabahan akhriso la hortag. Okay, han soconno. wuxuu yiri maalintan go'een ka soo galbado ii gurmoo nabow i gacan qaba ee. يا للعجب، يا سبحان الله، سبحان الله، إنا لله وإنا إليه الراجعون. إريدا أفكار لقد واقعي بي أفضليهن، لكن والله عند الله إلهي سبحانه وتعالى وح أي كدر انتهي مجرو. ورياكو قرمنا يا آخره مركا آد قوضو لمتو أدونك كفارق ياكو قرمنا. وحو يري مالنتان قوضو، يعني مالين كان geeriyoodo een ka soo go'o ama ka soo galmado oo ka soo galbanaysid. galbashada waxa la yiraahdaa qofku marka uu sii socdo oo casarka uu sii maaragtay maxaan ku dhahay hooyanayo casar liiqa waxay Soomaalidu tiraahdo. ii gurmo nabow i gacan qabo ee. yani ii gurmo oo i gacan qabo waa hadal waadix. maxaan Soomaali ka macnayn karaa? uu ku cad yahay. war nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam muxuu ku qaban karaa? billaahi calayk muxuu ku qaban karaa? war aakhiro waxa weeyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha noocan oo kale haddaad ula tagtid muxuu ku qaban doonaa baad isleedahay? ilaahay subxaanahu wa tacaala nin ku kufriyey oo ku gaaloobay ayaad noqonaysaa waqtigan oo kale. wallaahi inuu nebiguna waxba kuu qaban karay. wa wallaahi mar labaad baan ku celinayaa waxba kuuma tari karo nebi maxamed. war maxaa nebiga loo dhibayaa? maxaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam loo dhibayaa? wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam markay soo degtay aayaddii waandir cashiirataka alaqrabiin. nebi maxamedow waxaad u digtaa qaraabadaada cidda kuugu dhow markii lagu yidhi muxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam sida saxiixu lbukhaariga iyo muslimka ku taalla. abaa hurayra nebiga ka warinaya calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay yaa macshara quraysh, war hooy reer quraysheedow, ishtaruu anfusakum, war nafihiina iibsado ilaahay subxaanahu wa tacaala ka iibsada. war shirkiga iskaga taga weeyaan macnaheegu marka. laa ugnii cankum min allahi shay-a, ilaahay subxaanahu wa tacaala anigu waxba idinka tari maayo ilaahay agtiisuu leeyahay. yaa bani cabdi manaaf, wuxuu la hadlayaa waa qaraabo. war ree cabdi manaafow, laa ugnii cankum min allahi shay-a, anu ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala waxaan idinka taraya ma jiro. yaa cabbaas ibnu cabdimualib, wuxuu la hadlaya waa adeerkay cabbaas ibnu cabdimualibow, لا أغني عنك من الله شيئا، إلهي أكتيس وحن كاغا ترى يمجرته. ويا صفية محير صفيوي عمة رسول الله، لا أغني عنك هنده من الله شيئا. وحويا إلهي أكتيس سبحانه وتعالى وحن كاغا ترى يمجره كيري إيضنا. ويا فاطموي بنت محمد، ونبي محمد عليه الصلاة والسلام قبل ديسي والله الله يا أوكي. فاطمة بنت محمدي وحويا سليني ما شئتي، وحاد دونتي ويديسو من مالي مالكيغا، مو أورن وحكست ويديسو أوفرس النبي وحوري سليني وحادي ويديستا ما شئتي من مالي حولها أن هايستو الدنيا ده وحاد دونتي ويديسو. أوكي، لا أغني عنك من الله شيئا، إلهي سبحانه وتعالى أنا وحبك عقطري مايو أيوكو يري النبي عليه الصلاة والسلام. ساسو رسولك ليهي adiguna waxa weeyaan intood socoto ayaa waxaad iska soo duubaysaa maxaan ku dhahaa maalintaan go'een ka soo galbado ii gurmoo nabow i gacan qabo ee.
ورمحو نبيك كوتري gabadhiisii qofku bini aadamka waxa uu ugu jecel yahay waa ilmihiisa marka xaqiiqda laga hadlo gabadhiisii wuxuu ku leeyahay ilaahay agtiisa anu waxba kaaga tari maayo adii muxuu ku taraya war nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam wadu ku jeexay anbiyada ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa loo soo dirayna waa waxan oo kale in ay la dagaalamaan bakhtigan oo kale ummadda inay uga digaan allah subhanahu wa ta'ala muxuu yiri walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت حقيقة أما وحويان وحاضب أنبياء إن أن لصو أما أصدرني إن وحويان إلهي سبحانه وتعالى أي ويران كليجي إلا عابده لا إسكجان فقادنا إلهي غيرك وحى مارك العابده أيو أما الله لا لبري أيو إنا لله وإنا إليه الراجعون وحويان ورنمان يهو إلهي هلا جبقه الله هلا جعب صدق ووحويا النبي عليه الصلاة والسلام فرها أنه نوقعه هن نودا يا النبي عليه الصلاة والسلام هدبينه ما أكتهن مالن كقيامها إن لو يريدون عد كسته أو لعابد يولا بري جري ما وحد ربطان إن النبي محمد لبتان ما وحد ربطان النبي عليه الصلاة والسلام إن لو يرو إلهي اللي هرتاجه أو اللي إلى النبي محمد أهؤلاء إياك كانوا يعبدون ما أديك أيه دتكاسي كعابد جرين إن اللي إلى هم يضربتان يا رجال يا جماعة والإله لقى عبصدوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام فراها لقى قاضي